hay-adda nisa ayaa soo bandhigtay xubin ka tirsan al-shabaab kaasoo lagu eedeeyey inuu fuliyey qarax shalay ka dhacay isgoyska soobe ee magaalada muqdisho kadib markii maalintii shalay ahayd magaalada muqdisho uu ka dhacay qarax gaari lagu xiray kaas oo ka dhacay isgoyska soobe ee magaalada muqdisho ayaa hay-adaha ammaanka waxay qabteen xubin ka tirsan al-shabaab kaasoo lagu eedeeyey inuu fuliyey qaraxaasi. hay-adda nisa ayaa soo bandhigtay magaca shaqsigan waxayna ku sheegtay xudeyfa waxauna eedeysanahan uu la hadlay warbaahinta. anigoo ah xudeyfa daawud yuusuf oo ka tirsan ururka al-shabaab gaar ahaan qaybta qaraxyada ee gawaarida ku xirtay. maanta waa taariikhda 26 bisha 11 sanada 2019. maanta abaaray 2 sac ayaan kasoo dhaqaajiyey degmada Darkeenley. markaan kasoo dhaqaajiyey waxaa watay bambada gaari loo xiray. waa soo baxay waxaa imaaday beerta cabaar joogay. markaan joogay waan baxay oo waxaan aaday isgoyska banaadir. intaas dhan wali hagaagay. marka isgoyska banaadir aaday haddana PL qabsaday waa baxay waxaa tagay sheegay zooba anoo joogay soo wacay hayno zooba waxa la sheegay maana wax oo gaarin ku aragtay inta hadda ugu muuqato gaari saarif oo beental ah oo lambar la'aan ah ayuu muuqataa. arno waxaan la soo gudbiyay waxa waaye meesha tahan hadda dadkii waaweyneen marka gaariyaas u qabso loo number badan ay la isticmaaleen gaari aan taarbineyn waayahan nahay. marka shaqadiidaas u dhacday kadib anna waa yara ciidamada amniga. kaasina waxa uu ahaa mid ka mid ah eedeysanayaasha lagu soo eedeeyey inuu fuliyey qarax shalay lagu xiray gaari kaasoo ka dhacay isgoyska soobe ee magaalada muqdisho waxaana hay-adda nisa ay soo bandhigtay magaca shaqsigan iyadoo lagu sheegay magacaasi xudeyfa. xisbiga hoggaan qaran ayaa sheegay in nidaamka xisbiyada badan ee dalka ay isu keenaya ummadda soomaaliyeed kadib markii maalintii shalay ahayd guddiga doorashooyinka qaranka ay shahaadooyin guddoonsiiyeen 6 xisbi kuwaasoo ka mid ah 63 xisbi oo ka diiwaangashan dalka kuwaas oo ka jira dalka ayaa waxay xisbiyadaasi ay soo dhaweeyeen shahaadooyinka la guddoonsiiyey waxayna bogaadiyeen qaabka guddiga madaxa bannaan ay u guddoonsiiyeen shahaadooyinkaasi. abaadir khaliif oo xogayaha xisbiga hoggaan qaran ayaa waxa uu sheegay inay aada ugu faraxsan yihiin shahaadooyinka ay guddoonsiiyeen guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka waxauna sheegay in ay ka shaqayn doonaan sidii dalka loo gaarsiin lahaa doorasho qof iyo cod isla mar ahaantana ay uga qayb qaadan lahaayeen arrimaha doorashooyinka soo socda waxauna tilmaamay in dowladda federaalka ay kala dhaxayso wada shaqayn wanaagsan. waxaa jirtay hawl muddooyinka ay wadeen guddiga doorashada qaranka Soomaaliya Independent Election Commission marka oo ahayd inay maaragtay barbaariyaan diiwaan geliyaan maaragtay taabageliyaan xisbiyadii qaran ee mustaqbalka dhow dalka maaragtay uu waxaysan lahayd. xisbiga hoggaan qaran wuxuu ka mid yahay xisbiyada Soomaaliyeed ee diiwaan geliyeen isla markaana maanta shahaadada qaatay bandhiga dowladda Soomaaliyeed. ummadda Soomaaliyeed waxay hamuumyo u qabtaa inay ka guurto nidaamka qabiilka, inay ka guurto qoyska, inay ka guurto kala xirfadnaanta iyo xubnaanta. midda keli ah oo maaragtay lagu nidayn lahaa siyaasadda Soomaaliyeed lana isku dhexgeli lahaana waa asxaab siyaasadeed. jidkii toosnaadaan marka cagta saaray. ummadda Soomaaliyeedna guul bay u tahay, xisbiga hoggaan qaranna guul bay u tahay. waxay ka mid tahay maaragtay siyaasadda asxaabta waxa keli ah oo bulsho aan is aqoonin, isku gobol degnayn, isku shaqo aan ahayn. abaadir khaliif oo sii hadlaya ayaa waxa uu sidoo kale sheegay in shahaadooyinka ay guddoonsiiyeen guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka ay usoo garteen isla mar ahaantana waxa uu sheegay
in albaabo badan ay u furmi doonaan isla mar ahaantana ay ka shaqayn doonaan arrimaha bulshada. waxa uuna tilmaamay in ay la shaqayn doonaan guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka, waxauna uga mahad celiyey shahaadooyinka ay guddoonsiiyeen. aad iyo aad bay wax weyn noogu tahay. waxaa jirta albaabo aadan sharciyad la-aan aadan furi karin. waxay noo furaysaa albaabo badan oo siyaasadeed oo waxqabad oo wacyigelin oo maaragtay shaqo qaran loo qabto ah ayay noo furaysaa. wax weyn bay nooga dhigan tahay. maaragtay waana wax aan guul la odhan karo. waan gaarnay maanta guul. walaalo waxaa jira habraac iyo nidaamyo iyo xeerar ummadda Soomaaliyeed loo diyaariyey, dad Soomaaliyeed ay diyaariyeen habraacaas nidaamkaas iyo xeerarkaas, inkastoo ay maaragtay ka bulsho ahaan aysan aqoonin wacyiga siyaasadda iyo habka xisbiyadu u shaqeeyaan. waxaanu ku guulaysanay inaanu ku dhaqanno habraacaas siyaasadeed. maayo waa wax naloo gartay, waa wax shaqo oon kasbanay, waa wax aanu ku guulaysanay walaalo. yeelka iyagu walaalo doorasho keliya kuma baysgaraysno. yeelkanagu waxa weeyaan in ummadda Soomaaliyeed loo shaqeeyo, in ummadda Soomaaliyeed wacdigooda la bedelo. isbedelkuna ma ahan in guryo iyo dabaqyo iyo wadooyin la dhiso. isbedelku waa qiyamka iyo mabaadi'da iyo akhlaaqda bulshada oo la dhiso. hadalka Abaadir Khaliif oo kamid ah oo ah xogayaha xisbiga hoggaan qaran ayaa ku soo aadaya xilli maalintii shalay ahayd guddiga doorashooyinka qaranka ay shahaadooyin guddoonsiiyeen 6 xisbi, kuwaas oo qayb ka ah 63 xisbi ee dalka ka jira. waxaana sidoo kale xisbiyada dalka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka uu kulan kula qaatay xarunta madaxtooyada, iyagoo ka wada hadlay arrimaha doorashooyinka la filayo in 2021 ay ka dhacaan dalka. madaxweynaha maamulka Hirshabelle ayaa safiirada UK Ingiriiska kala hadlay sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen mashaariicda hakinta fatahaadaha. Cabdifataax Muumin Ilkaas ayaa dhamaystiraya. maxamed cabdi waare madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa magaalada Muqdisho kulan waxa uu la qaatay safiirada UK, Mareykanka iyo waliba safiirada UK iyo Mareykanka, isagoona kala hadlay xaaladda deegaanada Hirshabelle iyo fatahaada inta badan ku soo laabata deegaanadaasi. madaxweynaha Hirshabelle ayaa ugu horeyntii warbixin guud ka siiyay safiiradaasi xaaladda dadka deegaanada uu ka rimay maamulka Hirshabelle oo iyagu intooda badan dhibaatooyin kala duwan ay ku haysato, iyadoona u badan dhinaca amniga iyo waliba fatahaada inta badan ku soo laabata deegaanadaasi. madaxweynaha Hirshabelle ayaa sheegay in loo baahan yahay in wax loogu qabto ama loo qabto bulshada ku nool gobolka Hiiraan oo uu sheegay kuwa inta badan dhibanayaal ah, isla markaana waxa uu tilmaamay in dowladda Soomaaliya ay ka gaabisay wax u qabashada dadka ku nool deegaanadaasi. dhinaca kale safiirada UK iyo sidoo kale Mareykanka ayaa iyaguna si sumid ah u sheegay in xal waara laga gaaro dhibaatooyinka soo laabta ee inta badan ku dhufta deegaanadaasi, ayagoona si gaar ah u tilmaamay in bulshada ku nool gobolka Hiiraan ay yihiin kuwa markaasi inta badan soo saara ama bulshada ku nool deegaanada Hirshabelle ay yihiin kuwa wax soo saar leh, isla markaana laga caawiyo wax walba ay u baahan yihiin. gabagabadii kulanka ayaana waxaa la isla gartay in xal waara laga gaaro dhibaatooyinka soo laabto siiba dhinaca amniga iyo waliba fatahaada webiga maraha gobolka Hiiraan iyo guud ahaan deegaanada Hirshabelle, iyagoona sheegay in muhiimadda koowaad iyo labaadba ay tahay sidii bulshada ku nool gobolka Hiiraan iyo guud ahaan deegaanada Hirshabelle ay markaasi wax walba ay u baahan yihiin laga caawiyo. kulankan ayaa waxa uu daba socdaa kulamo hore uu madaxweynaha Hirshabelle maxamed cabdi waare uu la qaadanayay qeybaha kala duwan ee markaasi safiirada iyo waliba bulshada waa dadka caawiya ama hay'adaha caawinaada u fidiya dadka ku dhibaataysan deegaanada Hirshabelle. aad baad u mahadsantahay Cabdifataax Muumin. baraka xoogan ayaa ka bilowday deegaano hoostaga magaalada Jowhar xilli fatahaado saameyn ku yeeshay deegaanadaasi ay ku dhifteen halkaasi. kadib markii deegaanada uu maro webiga Shabeelle ay fatahaado ku dhifteen, ayaa waxaa deegaanada qaar ka soo yeeraysa qayladhaanta oo ku aadan fatahaado horleh oo ka dhacay deegaanadaasi. waxaana baraka xoogan uu ka bilowday deegaano hoostaga magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe. mid ka mid ah dadka deegaanka oo nala soo xiriiray ayaa waxa uu sheegay
inay ka barakaceen deegaanadaasi. Waxa uuna sheegay in aysan haysan wax gargaara isla mar ahaantaana ay xaalad nolol xumo ay ku haysato deegaanada hoostaga magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe. Waxa uuna sheegay in ay ka cabsi qabaan in fatahaado horle ay ka dhacaan deegaanadaasi. deegaanadan ee fatahaadaha ay ku dhintaan waxa waaye tuulooyin hoostagto magaalada Jowhar. wallahi wax badan aan kala nidoobi karaa horta khasaaraha meesha fatahaadaha meesha ka dhacaan khasaarooyin badan ay deysteen. marka horta beeraha ku yaalid waa wax dalag la yiraahdo ma jiraan. tuulooyinkii oo dadka ku noolaayeen aba laga barakacay. wallahi waxaa wax la tirikooyi kara ma aha. tuulooyinka oo biyahaas ka barakacay oo hadda waxay u dhintay ilaa iyo tuulo oo jeer hoostagtay biyaha fatahaadiyeen ilaa iyo muddo 9 iyo dhowr cisho waa dhigin karaa biyaha ay tuulooyinkan ay ku hareeraysan yihiin. deegaanada fatahaadaha ka dhacana jeer 3 kilomitir ama 4 kilomitir ayaa intaas ay u jiraan jeer. wallahi dadka deegaanadaas oo deganaay inta badan waxay u barak magaalada xamar loo qaraab doontay waa rarteen meelahaas qaraab doontay. oo tuulo walbana wax ogayo beeri biyahaas malaayka gaataan ay iska anfasaan wax liiraa ama gargaar liiraa ma jirto. kooda arkay ilaa haddana ma jirto. ugu dambeyn waxa ugu baaqay bulshada Soomaaliyeed inay gargaar la soo gaaraan si ay uga baxaan dhibaatooyinka ay u geysteen fatahaadaha ku dhiftay deegaanada ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe iyo gobolka Hiiraan. wardeena ma jiraan waa Shabeelle bari laamidana waa go'aanta kadib bara ma jira. magaalada Jowhar awoodda Jowhar waaye magaaladana waxaa lagu baxay webiga dhexdiisa doon motorna lagu rito lagu baxayaa dowladka aan Jowhar lagu tagaa lagu soo adeegaa haddana doona lagu imaan ilaa saacadir ilaa iyo waqti karsaas oo dadkaan hadda ma arkay ma jirto baariye aan ku jirno hadda isoo idin gaareen waxna dhahayo dowladda Hirshabeelle ma jirto ma arkay. والله واحد يراشع لورا مجبته معالم ما تكشف زرقايزة روك وهذين يمارن واسكشيتوها إلى يد الروح قدوسه دي ناشن شرع أكيد عوض عمرك يتركوا بير ملدور يسوق ساين وترين جواب وترين ويبغى نكسي درسوا كده كتايا أنا مركز هنا عبسي وستي أنا شعبك يا فلان ستي عن كبركاي ديوان ذات جواب بقار وحيد حمر وقعنا يتجران كلنا تورين كلنا كدك حوالي أنا يا رحسن مري لامي بالدم. kaasina waxa uu ahaa mid ka mid ah dadka deegaanada hoostaga magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe. waxa uu inoo sheegay in halka ay ka jiraan barakac isla mar ahaantaana laga cabsi qabo in webigii uu fataho dadka qaarna ayba ka barakaceen fatahaadahaasi. halka wararkaasi subaxnimo aad kala socotaan waa idaacadda Simbe ee magaalada Muqdisho. iminkana wararkii dibadda. madaxweyne ku-xigeenka dalka Mareykanka ayaa booqasho ku tagay wadanka Ciraaq. madaxweyne ku-xigeenka dalka Mareykanka Mike Pence ayaa booqasho la yaab leh ku tagay wadanka Ciraaq iyadoo qaybo badan oo ka mid ah wadanka Ciraaq ay ka soconayaan dibadbaxyo ka dhan ah dowladda dalka Ciraaq. madaxweyne ku-xigeenka dalka Mareykanka Mike Pence ayaa booqasho ku tagay saldhigga ciidamada cirka ee Mareykanka ay ku leeyihiin Al-Asad halka loo yaqaano oo ka tirsan gobolka Ambar ee dalka Ciraaq. madaxweyne ku-xigeenka wadanka Mareykanka Mike Pence ayaa booqashadiisa ugu horeysay ku tagay wadanka Ciraaq waxaana warbaahinta wadanka Ciraaq ay sheegeen madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka sidoo kale ra'iisul wasaaraha wadanka Ciraaq ay qadka taleefanka ku wada xiriireen isla mar ahaantaana waxa ay ka wada hadleen arrimaha la xiriira caqabadaha haatan ka taagan wadanka Ciraaq.